dhaqan kasta oo dunida ka mid lagu dhaqmo waxa uu leeyahay dhaqan dhowrayaal ilaaliya jiritaanka dhaqankaas iyada laga ilaalinayo inuu dhaqanku noqdo mid doorsoomo oo lahayn cid ilaalisa. Akadeemiyada dhaqanka waa gundhiga dhowrista dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah waxaana la aasaasay 1975 iyadoo fikirka akadeemiyada ay lahaayeen guddigii hirgelinta afka Soomaaliga. 1979 waxaa la ballaariyay magacii akadeemiyada dhaqanka waxaana loo bixiyay akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta. Saldhigay ku shaqeysana waxaa looga dhigay halka haatan ay ku taal oo ah halkii lagu curiyay fikirka akadeemiyadan ee shaqeeya maanta. Maxay tahay shaqooyinka ay qabata akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta oo xilligan ah mid shaqeysa kadib muddo ay ahayd mid aan shaqeyn oo burburka gaaray wadanka uu ku reebay saameyn. waxaa ka mid ah ilaalinta iyo dhowridda hidaha iyo dhaqanka. hidaha iyo dhaqanka ummadani leedahay ciyaaraheedii, garteedii, xeerarkeedii, waxeedii, waxay hidda iyo dhaqan ummadan u lahayd ee dhaxal u lahayd akadeemiyada mas'uul bay ka tahay inay kolba jiil gaarsiiso, tababarto, waxyaabo badan samayso iyada mas'uulka. waxyaabaha kale akadeemiyadu mas'uul ka tahay waxaa ka mid ah waxyaabaha la yiraahdo dagalbaarka ama archaeology-ga waxa la yiraahdo oo taariikh dhul ku duugan ama raadad hore meel intii laga helo in la qodo loo baahdo akadeemiyada goobjoog bay ka noqonaysaa ayada diiwaan gelinaysa waxa meesha laga helay. archaeology-ga dagalbaar baa la dagalkii waa dhulkii hadii la baaray la qoday. waxa ka mid ah waxyaabaha kale ee akadeemiyadu ay iyaduna ay ka shaqeyso waxaa ka mid ah in lagu xalliyo khilaafaadka habkii soo jireenka dhaqanka. saas ay aaminsan dhaqan dibadda laga keenay ma aaminsano, xeerar kale adduunyada lagu soo sameeyay ma aaminsano. waxay aaminsan tahay habkii soo jireenka dhaqanka Soomaalida in lagu xalliyo khilaafaadka Soomaalida. ay aaminsan tahay odayaasha iyo xeerkeeni iyo gartii iyo geedkii iyo in la adeegsado. taasaa ka dhaxal gal badan. markii akadeemiyada howlahaas ay haysaa howlaha oo dhan markaad eegto waa wax tilmaamaya ama ku tusaya lahaansho inay waxay dadku lahaayeen. hadda marka wasaarad caafimaad ama wasaarad laga hadlo kalluumaysi ama wasaarad qorsheyn ama wasaarada laga hadlo waa wax adduunku nala wadaago. laakiin waxaan markaanu ka hadlaynay deheeni, dhaqankeeni, afkeeni, taariikhdeeni, waxyaabahaas oo marka hadlaynay waa wax inagu inu gaar u leeyahay. Akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta waa goobaha lagu kobciyo dhaqanka iyo fanka Soomaalidu leedahay. waxaan aragtida iska lahaa 1972 guddiga afka Soomaaliga ka shaqeynayay dhaqan gelintiisa. waxaa jirta marka afka Soomaaliga la dhaqan geliyay 72 hadallada cajiib u ahaa ee abwaanada Soomaaliyeed la qaybsanay farxadda ummadda Soomaaliyeed. waxayna dhaheen mar haddii afkaygii la qoray aabbe iyo hooyo, mar haddaan amaasigii ka baxay lagu agoontoobay, abaal waxaa leh nimankii falkaas soo abaabulay, anaa macallin oo rabo dad loo furo iskuulaadi. abwaan Cabdullaahi Raage Tarawiil waxaa ka mid ahaa abwaaniinta xilligaasi gabayda qiimaha lagu qayb qaadanayay farxadda shacabka Soomaaliyeed kula wadaagayay dhaqan gelinta qoraalka afka Soomaaliga. in Soomaaliya ay hesho far u gaar ah waxay ahayd mid soo marta marxalado kala duwan. bilowgii ku dhiirashada in far la helo waa mid ka soo bilaabatay 1920 iyadoo xilliga dadku ay xoogga saarayeen helitaanka far ay isugu sir waramaan si gumaystaha uusan ula socon dhaqdhaqaaqooda xorriyadoonka ahaa. caqabadaha kale ee dadajinayay hirgelinta farta Soomaaliga ah waxaa ka mid ahaa suugaanleyda oo qoraaladooda rabay inay u galaan diiwaanka, balse riyadaasi waxay run noqotay xilligii dawladdii kacaanka ka hana qaaday dalka. sidii loo fulin lahaa iyadoo go'aankii la qaadanin ayaa waxaa dhashay 1969 21 Oktoobar kacaankii barakaysanaa ama dawladda kacaanka ahayd. dawladda kacaanka ahayd waxay samaysay guddi bay qabatay. guddigaas oo ahaa ilaa 24 xubnood oo loo yaqaan guddiga qoraalka farta afka Soomaaliga. waxayna fariisteen xaruntan akadeemiyada cilmiga fanka suugaanta oo markaas loo yaqaanay xarunta akadeemiyada dhaqanka loo yaqaanay. guddigaas markuu fariistay waxaa la gartay in maaragtay sheeg muxuu ahaa hanaankii loo qori lahaa fartaas in la sameeyo. marka dadku waxay yiraahdaan waxaa la qaatay far gaar ah wax noocaas ah. lama qaaran far gaar ah, waxaa la qaatay fartaas oo taageerayaal badan lahayd oo Laatiinka la qaatay. waxaa jirta fartaan ayaduna Carabiga jirtay, fartaan Soomaaliga jirtay. isu geeyn farahaas oo isku xulay ayaa waxa ka soo baxay wax loo yaqaano farta Soomaaliga oo habkeeda qoraalka iyo dhismaheediiba guddigii af Soomaaliga ay qabteen taasoo aruntii shaqo aad u dheer.
caasimad kasta waxay kuwa kale uga hormartaa waa taariikhdeeda oo laga ilaaliyo inay aasanto ama burbur loo geysta raadadka qadiimiga ah ee muujinaya inay tahay caasimad waqti dheer dhisnayd. Muqdisho waa magaalo haysatay ilbaxnimo goobo taariikhi inay ku yaalaan. xilli aan howlo shaqo u tegay degmada Shangaani waxaan la kulmay dhismo ka haray raadad hore ee laga bilaabay dhismo, laakiin akademiyadu ay joojisay. waxaana weydiiyay gudoomiyaha akademiyada siday ugu suura gashay inay ka hortagaan hakinta xasuustaas la duugayay. ummad taariikhdeeda hadday lunto iyadana way lumaysaa. magaalada Muqdisho haddii meelaha taariikhda laga baabi'iyo oo dib loo cusboonaysiiyo wax hadda laga dhigo, macnaheedu magaalo xalay dhalatay bay noqonaysaa. laakiin magaalada taariikhdeeda haddii loo daayo cid walba adduun ka timaado way garanaysaa magaalo qadiimi inay tahay oo dhowr kun sano jirtay inay tahay. marka waxyaabaha loo ilaaliyo waxaa ka mid ah goobaha taariikhda magaalada ay ku taalo inay ku faanto horta ummadda iskalena in la ogaado jiritaankeeda. inagu mashalan soo degnay meesha waa inta kuna sano deganeyn meesha waa in la maxaa tilmaami kara dhismooyinkii iyo raadadkii laga tegay ayaa tilmaami kara. haddii wixii la masaxo oo la wada baabi'iyo wax cusub laga wada dhigo ummaddu maxay noqonaysaa ummadan taariikh lahayn, ummadan jiri jirin, ummadan meesha xitaa lagu qabsan karaa meesha maba deg maxaa day raado taariikh oo aad haysataa. marka akademiyadu waxyaabaha ay ka shaqeyso waa ayay ka mid tahay masaajidka Shangaani waan u tagnay waxaan niri goobtan waa goob taariikheed way noogu jirtaa diiwaanka intaasoo 100 oo sano ilaa 800 oo sano yuu dhisnaa masaajidka. waxaan idinka codsanay inaad joojisaan. marka dad baa doonay lacag iska soo guray inay masaajid ka dhisaan. marka masaajid wuu wanaagsan yahay laakiin meel taariikha in lagu dumiyo waxaa ka fiican in meel kale laga dhiso. xaafadda Shangaani way badanta soo maaha meel kale laga dhisi karaa masaajid jira in kale lagu baabi'iyo anaga way nala qumanaan weyday. akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta si dhow ayay ula shaqeysaa qorayaasha Soomaaliyeed iyadoo ka faafreebta qoraalada ay sameeyaan. xarunta dhexdeedana waxaa ku yaal maktabad lagu iibiyo buugaagta ay akademiyadu faafreebto. Maxamed Ciise Koona, Goobjoog, Muqdisho.